khayr iyo barwaaqan idin rajeynayaa dadka yar baaba fiican marmarka qaarkoodu de waa isla sheekaysan kartaan shalayto inan baa ila soo hadlay oo markaa annagoo cabaar iska yara sheekaysanana wuxuu igu yidhi gabdhihii soomaaliyeed hadda qaar baaba keenay inay isqaawiyaanoo markaasaan ku yidhi yaa isqaawiyey talo maxaa iga dambeeyey markaasuu wuxuu yidhi gabadh fanaanada oo deeqa afro la yidhahdo deeqa afro ilaahay bay iga tahay ma garanayn because music badan ma dhegaysto run ahaantii topic tonight what's the topic tonight meesha waxaan moodaya inaan kusoo qoray malaa maydaan arkin topic tonight wuxuu ku saabsan yahay gabadha fanaanada ah ee deeqa afro la yidhaahdo the most beautiful woman I've ever seen wow what a gorgeous lady deeqa afro ma ay maqlaysaan kulligiin haa soo qora hadda ay maqlaysaan and please share so other people can join us dad kalena si ay noola soo wadaagaan ma ay maqlaysaan ha okay great marka topic inantaasuu ku saabsan yahay deeqa afro ayaan shalayto ayuu inan la soo hadlo markaasuu igu yidhi gabdhihii soomaaliyeed hadda waxay bilaabeen inay isqaawiyaan markaasaan ku yidhi yaa isqaawiyey oo talo maxaa iga dambeeyey markaasuu yidhi gabadha fanaanadaabaa dee cawradeedii banaanka soo dhigtay oo kax buu ahaa wuu muraar dilacsanaa moogta dabadeetna wixii baan yaro eegeegay waxaan arkay waan yaro baadhbaadhay youtube gabadha si fiican umaan garanayn waxaan gartay markaa inay tahay gabadh beri aan hees cajiib ahoo heestii walba waxaasaaya sax sidaa ahayd that beautiful song qaadaysa inay tahay a beautiful 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 woman maasha allah anyway waan yaabay oo waxaan ku yidhi okay sheekadii baan dhegeystay waxaan arkay gabadhii in meel walba cawradeedii lagu soo sawiray meel walba nin soomaaliyeed oo qaylinaya oo muraaro dilaaca oo gabadha cawradeedii ka sheekaynaya oo le balse isu soo qaawisay de oo meel walba kusoo dhijistay si uu kelig u helo laabteedii really way iga cadhaysiisay arrintaasi waayo waxaan garan waayey waxaa dhakada ka saaray nimankii soomaaliyeed gabadh soomaaliyeedun oo ay gabadh soomaaliyeedun uga adkaadeen I don't understand I really don't qaraxyadii soomaaliya ka dhacay maalintii dhaweyd ee bishiiba 2 jeer ka dhacaa ma mar ee dad masaakiina maalin walba lagu leynayo cid isweydiisay iyo outrage ka dhacay iyo qaylo iyo muraaro dilaac iyo tolaaye maynu maqal naag baa diinta ka baxday naag bay isqaabisay who cares maxaa kaa galay adiga I understand inay ku dhibayso qofkaagiyo dayacan ama maaragtay dee meel iska dhac isku sameeyey but first and foremost marka ugu horeysa waxa weeyaan adigu ceebka saliin ma tahay 100% gabadhaasi hadda shalayto video kale bay soo gelisay oo ay wiil ku wareysanayay ay leedahay waan khaldamay waan ka noqday ee walaal iga daayay xagxagashada iyo dhibaatada hadday iyadu kii ay soo gelisay la tirtiro yaa ka hard drive-ka uga buuxa dadka nimankan wada save garaystay ee marba in yar soo goosanaya laabteedii iyo barigeedii ee soo dhiganaya yaa tirtiraya kaa why ad qofka hadduu qofka biniaadanki waa qof biniaadana wuu khaldami karaa hadduu qofku khaldamo maxaad ceebtiisa usii fidinaysaa why danta kuugu jirta adiga maxay tahay waynu ka cadhoon karnaa wax waynuu sheegi karnaa qofka laakiin in bogoskiisaad galaysa waxaad oranaysaa walaal please waan ku baryayaa walaal wax iskula had don't do that ha isku samayna sidaa qofka biniaadanka marka la sii fogeeyo ee diintii jeeda lagaga dhigo ee lagu garaaco qofkii waad sii fogeysay wax asxaanood u samaysay ma jirto intaanad samir qaamin adigu mar walba dib isugu noqo adigu ceebka saliin daadax ma tahay dhinac walba markaanu isnaa cid wax ka sheegba aniga dib isugu noqdo 100 khalad iyo 100 dambi oo ku jira igu soo baxay markaas aan dib u cararaa ma noqon karo ceebka saliin laakiin taladu waa wax la isku leeyahay
outreach-keena iyo dhibaatadeenna waa inaynu meelihii loogu talagalay channelska loogu talagalay waa inaynu marinaa waxyaabaha u baahan in laga muraar dilaaco waa inaynu ka muraar dilaacnaa dhiiggii baa qulqulaya dhulkeenii dadkii baa madhay wax qurmayo noloshii ku qurmayo dayac ka dhargay iyo wax la dilayo la qarxinayo maalin walba ayay yihiin you know there's a famous mahmah baa jirta oo ingiriisi oo tiraahdaa waxay tiraahdaa qofkii yidhi wuu iga maqan yahay Eleanor Roosevelt iyo maaqan qof ahayd anyway waxay yidhahdaa small minds discuss people dadka caqliga yari dad bay ka hadlaan yaa dadka maskaxda yari dadun bay ka hadlaan hebel muxuu xidhnaa hebel muxuu sameeyey hebel siduu yeelay hebel that's it intaasay ka hadlaan mediocre minds kuwa dhexdhexaadka caqligoodu yahayna places bay ka hadlaan meelahay tageen meel heblaayaan tegay waxaasaan sameeyey waxaasaan cunay halkaasaan aaday waxaasaan arkay but great minds discuss ideas yeah caqliga wanaagsani fikraday isweydaarsadaan waxay ka hadlaan how do we change the world how do we make a dent yeah sidaynu adduunka wax uga bedelaa inagu haddaynu Soomaalilahay waxaynu ka hadli lahayn masiibadan inagu habsatay maxay tahay xaggay ka socotaa yaa ka mas'uula yaa fangareeya yaa dabada ka wada yaa ina laynaya cadawga inagu hoos nool ee ina cunaya ina rifaya hoosta inoogu jira yeeyihiin arrintan masiibadan dhammaan weyday 30 sanadood ee jarjarka ee tafraaruqa inagu riday ee ina baabiisay xaggay ka socotaa sidaynu ku xallinaa maxaynu ka yeelaa daaris fikradda inoo taala not naag ba isqaawisay iyo nin baa halkan galay who cares yeah that's not danta guud maaha waxaasi gabadh Yurub joogta dad qaar ba koonay dad gabdhaha ku daynay yaa ku daynaya qofka doonaya awalba maskaxda yara caqli yara ama caqli yara ee qof ku daynay wuxuu ku daydo maba waayaba way buuxaan wax lagu daydaa this is the 21st century wax waliba waa bayaan way buuxaan one click baa kaa xigta wax allaale waxaad doonaysid cidaad ku dayto waayi maysid wixii ilaahay hanuuniyana wuu hanuunsan yahay wixii aan hanuunsanayna iyo ciddii doonay bini'aadamku jarooyin bay maraan yaa meelo kala duwan bay maraan qofaan khalad soo gelin qofaan isa soo qaawin qofaan dhibaato soo baarday xadgudub naftiisa ku sameeyna cid ku sameyn maba korinba waayo aragba maahe dhaayaba ma isaga ale qofkaasi muxuu sheegi karaa marka qofkan iyo ilaahaygi subxaanahu wa ta'ala abuurtay baa loo kala baxaya waayo qofkani isaga dambiga iska galay naftiisu ka galay and this dambi isaga ilaahaysa ka dhaxaysa laakiin markaad fidisid markaad fadeexadaysid markaad jiidid markaad caycaydid markaad meel walba ka ridid arrintii dheeraysid badisid ogow dambiga qofkaasaad ka gashay and ilaahay subxaanahu wa ta'ala de ilaahayna waad ka gashay qofkaana waad ka gashay lagaa saamix maayo ilaa qofkaas ku saamixo waa dhito adiga meel ku taala nin walba gabadh baad dhali doontaa mid baad guursan doontaa mid baad awoow noqon doontaa haddaanad haddeer qabin waad qabtaa haddaanad already haysan waad haysataa gabdhaha ka daaya fogeyntan aad fogeynaysaan riixidin aad riixaysaan qaar baa waashay gabadhii milyuun lalahay la yiri waaba waalato madaxiiba oo iska xiirtay oo marba waxay tiraa diintii baan ka baxay haddana waan kusoo noqday qof le diintii baan ka baxay haddana waan kusoo noqday waxa ku cad qofka inaanu qof dhibaato haysato there's something going on waxbaa jira qofkan dhibaya depression dhibaato isku day inaad tiraahdo how can I help this person qofkan we need to help our sister walaasheen inaynu caawino dhibaatada haysata aynu la hadallo qaboojino wixii baa meel kasta laga sii ridaya qofkii baa la isugu tagayaa wadaadadii baa ka soo hadlay wadaadadani may ka hadlaan dadka baabiinaya dadka baabiyay milyuun iyo qof kale ba kulligeen whatever we do just inagu ma isku sameeyna dadka baabiinaya
waddan dhan adduun dhan jilbaha dhulka u soo dhigay la haysta ka dhigay tunka kaga fadhiya. Why don't we talk about that? Maxaynu uga muraar dilaaci la'anahay? Think about this. Somalis are dying every single day. Kii dhaqaaqayay gabadhii dhaqaaqday ninkii dhaqaaqa la dilaya. Who is who? Why don't we talk about who is this? Yaa dilaya dadkeenii dhaqaaqayay qofkii madaxa la kacabaya dadka gumaadayo madaxa ka goynaya. Who is this? Surely this cannot be dad Soomaaliyeed. dadkani dad muslim ma noqon karaan, dad Soomaaliyeed ma noqon karaan. Hadday yihiin kuwa sameynayaana cid baa dabada ka wado soo diratay. Who is our enemy? xaggaynu ka bilownaa? sidaynu ku xallinaa arrintan? No, gabadh diraceed iyo shaalka siday u huwatay iyo go'a siday u xirtay iyo yey la hadashay iyo intaasaynu ka dhamaan weyne. Honestly waan nin Soomaaliyeed, raggii Soomaaliyeed ma gabdhihii Soomaaliyeed unba ka adkaateen weliba u dhaqdhaqaaqayay dadka ummadda wax tarayay maaragtay kii baahan walaalkii caawinaysay, aabihii caawinaysay, hooyadii iyo waalidkii haysay. annagii baa naga dhammaan la'diin. Shame on you. You know, there's a hadith waxa la yidhi Nabi Ibrahim and alayhi salam, the friend of Allah. Nabi Muhammad naanistiisu waa the friend of Allah, waa saaxiibkii Ilaahay. ayaa waxa la yidhi wuxuu nabcaa inuu keligii wax cuno. marka nin dariskiisa abuu u yeedhay oo ku yidhi kaalay ila cashee caawo. ninkii baa u yimi sanamuu sitay, dhowr sanam buu sitay oo markii dee ay soo fadhiisteen buu sanamadiisiisa soo hordhigay. Nabi Ibrahim wuu xanaaqay dee wuxuu ku yidhi how dare you, ku soo cusumay cuntaan ku siinayaa sanamadanaad sidatid. There's only one God, ilaaha keliyaa jira. waxanaad sidato wixii buu intuu ka tuurayo buu ku yidhi baa la yidhi tag. ninkii wuu tegay, wuu cadhooday. ilaahay subxaana wa tacaala wuu la hadlay dee fariin baa loo soo diray, malakul jibriil loogu soo dhigay. waxa la yidhi who are you? ninkaasi 22 sano 22 jir buu ahaa. 22 sano ayaan hayay anigu oo quudinayay oo korinayay oo anfacayay. maxaa kaa galay adiga? 2 saacadood mise saacad baad xamili kari weyday casho aad la cunaysay. lakum diinakum walidiin. maxaa adiga quruxda diinta muuji baa lagu yidhi. qofka xagxagoo dil laguma odhanin. intaa keliyaad u dulqaadan weyday. aniguna intaasoo dhan baan soo hayay. ilaahay wuu awoodaa qof kasta ummaddiisa, gaal iyo cid walba, inuu mar kaliya muslim iyo mucjiso kusoo wada dejiyo, wada misha oo sinta oo qurux badnaysisa. That's not how it's going to be. maskax buu ina siiyey, caqli buu ina siiyey, maaragtay common sense buu ina siiyey. inagu inaynu ishagno, maaragtay maskaxdeena cabirno, xaq iyo baadilka kala saarno, wax laga hadlo iyo wax laga cadhoodaa. Soomaali haddaynu nahay gundaheena yaalaan in every category dhan walboo aad eegto dhabteennay saaran yihiin. ma aha in gabdhaha uun laga dhigo xumaanta oo mid waliba uu intuu sawir laabteedii gabadhii ka soo qaato uu soo dhigto halkaa oo lasii cambaareeyo oo lasii xagxagto oo loo hanjabo oo qofka noloshiisii cidhiidh la geliyo. qofka caqliga leh ee wax fahmaya baaba garanaya qofkan in lagu xadgudbay, xataa isagoo hadduu xadgudbay lagu sii xadgudbay oo laga sii gardaraaday oo lasii fogeeyey oo lasii xumeeyey, meel fog la gaadhsiiyey. what do you think? ilaahay subxaana wa tacaala casaa wajallah wax walba leh, xaq soore, yay kula tahay inuu hiilinayo? what do you think? marka walaalayaal, waxaynu u baahannahay in aynu really hoos isu eegno,
haddaynu iscaawinayno iyo haddaynu isbaritaarayno iyo haddaynu wax isu sheegayno si hufan oo wanaagsan aynu wax isugu sheegno nimankan culimada isku sheegayaana inay meelaha looga baahan yahay ka hadlaan iyo dadka baabiinaya ka hadlaan gabdhaha hadday wax u sheegayaan inay si tartiiba ugu sheegaan nimankan gabdhaha Soomaaliyeed YouTube-yada u furtay ee maalin walba caayaya cambaaraynaya baacsanaya inaa ka qabataan we need to stop this madness dhalinyaradan yaryar ee wada YouTube-ka haysta ee gabdhihii maalinba gabadh soo gelinaya maalinba iyagaa u baahan wax la hadlaa for God's sake midda kale ma aha un gabadhan quruxdeeda iyo jirkeedii bay soo saartay kanay soo saartay you need to take care of your whole being qaar ilkala baa soo gelaya oo ilkii aad aragto jaadinu ka burburiyay oo gabigoodaba afla oo qurub yar halka ka soo taagay marka soonaya xaqnays qaabshay waxay saqaas ilaahay wuxuu ku yiraahdo ba take care of yourself saad marfa shu fadhiday baad milantay what are you talking about you take care of you brother man marka intaasan doonay inaan ka hadlo maanta dee wax kale waaban yaabayba qofku markuu creative yahay maskaxdu intaa way ku shaqaynaysaa boqol waxbay sidaa kuugu soo dejinaysaa waxay kunaysaa saa samee I am creative I know that waxyaaba crazy a marba nagu soo dhacaa you know laakiin hadhow waan ka subxaanalaystaa annaada bismillahi raxmaan raxiim ilaa waanad samaynaysaa and because waxaad rabtaa wax unique mar walba inaad samaysid and I see gabadhan deeqa and not only is she beautiful she is creative heesaheeda iyada qorata and everything about her is very unique marka that's what happens to creative people they cross the line sometimes but crossing that line teaches you things badan bay ku bartaa xorriyaddii baynu iska qaadnay Soomaalidu xor maaha we can't be xor sida kaliya aynu xor ku noqon karnaa waxaad moodaa inuu qofku kiiska iska waasho biliya baas sameeyo because silsiladii qoyskaa kugu xidhan oo tii qabiilkaa kugu xidhan oo tii muxuu ahaa oo diintiina waxa lagaaga dhigay karbaash lagula dhacayo xorba maba tihidba waa sidii markaynu yaryarayn waliba markaad soo koraysid qofba qofka reerkoodu kaga adag yahay ee freedomka u diido ee nafta u keeno suuqay ka sii geli jireen dadkaasi it's still the case waa sidaasun haddeerna marka intaasaan doonay inaan idiin sheego and we will all make our own mistakes we're human beings waynu khaldamaynaa bini aadan baynu nahay and waa la khaldamayaa and intaanad qof ku galgalan oo xuubsan adigu dib isugu noqo qofbaa telefoon soo diray that's all I'm saying and wixii ku dhibaa indhahaaga iyo qalbigaaga dhibaya iyo naftaada don't look at it ha eegin ha ku noqon ha u dhabagelin move on just move on khayr baan idin rajeynaya maxaa qof baa ii soo qoraya de bal okyaalahay meey okay kon maxaa ii soo qorteen let me see bal dadka dhulbahante oo dhan aflagaadeeyay bay gabadhaa darteed ishii dhulbahante here's I love okay I didn't even know oo mahabareertayba oo maansho gabadha u cadhooday malaa dhiiggii bay kacay tolaaye dhiiggii bay kacay habareertay wow wallahi I didn't know inay dhulbahante tahay you know that's why she's so gorgeous because hablihii dhulbahantee dhaadheeraaye quruxda badnaaye dhamayska ahaa way u eg tahay maasha allah wow oo maxaa dhulbahanta oo dhan loo caayaya reer abtiga gabadh loogu caayaya qolo waliba cid walba way leedahay qof aan lahayn maaragtay cid walba wax walba qolo kasta way ka dhasheen maxayse gabadhaas dee anigu xaddan lagu caayo
yes waxay geysatay dharkan yara qaqaawan ay gashatay you know it's between her iyo ilaahay anigu waaba malaa'ige waaba geenyo at least hadday is soo qaawisana dee qurux bayba meesha soo dhigtay subxaanallah ilaahay waan ka magan galay inaan isqaawine I'm not condoning malihi way ku saxsan tahay laakiin all I'm saying is iska daaya حتى بل قبيل كدنا لما أجي بل for example قف بعدين بيجلي قبيل كيو دم بعجلي قف ماركت خلد جلي قبيل كيو دم بمسؤول كا insanity a complete insanity لكن هدا عبرت تايوان هذه I always have a girl crush on you. Oh, thank you, Walalo. I love you too. When are you going to begin the talent show? Oh my God. So the one below there. New Year can't have any so good. The marked Kuyuguri. The so did there. Hiba dobi. Inapti. So did there hesta. Wakusi there. Halka marna وحنسير كي حبرتي and lucky or see good be said. ما هبر يرجع له حسنا القرآن حسنا إسماعيل and ده سو قليا فلين باتينو and مركل اللي يراهدو صدرة ما صدرة يسان فرينهم بيجي صدريان هيس بيدك سوقريان مرة بروح لسوقره وحن ربعنا صدرتان أو أن سوق قليو هدا دوني سان بيج كونوا نقض كيف فرحدة يكي معركتي قروح ده اللي سوق بني يكي إنه ضدك مسكح ذا مذوباتي كجم ميري لهين yeah so good بيا okay what did I miss tonight إنا بتقع على السوشيال كبدن بقى talent show وحويان فيديو أنا يندوي تسوق لي and إنا بتي and أو and أنا هاي بيت كنا فريد ده هذا يجلس عتان وأنا قلت لك علي إن أينو وحن كان دقي وحن بحي قوله فرحدة iyo jacaylka marka heesa jacayla baynu soo qaadaynaa iyo farxadun baynu kaga sheekaynaa soo gelinayna yeah and it's open for everybody marka waad ii soo diraysaan waan habeynaya waan isku xirxijinaya musalsal dhan baan ka dhigaya waan soo deynaya dabadeetana wixii oo edit garaysan oo qurux badan marka heestaad ugu jeceshahay ama heesaha kuwaad ugu jeceshihiin baad soo qaadaysaan 2 minutes not very long 2 minutes and why that song is particularly important inan ba sheekada ugu horeysa soo dayn doono inan jacayl cajiib ku dhacay nimanku jacaylkooda ma qirtaano annagu dawaan iska qiranaa xogaaga ayaa ii sheekeynayay wuxuu yiri intan aan idinku soo gabagabeynayaa waxa hordhac yar baan idinka siinayaa New York kan soo daynaya insha Allah wuxuu yiri markii gabadhan jeclaayeen qalbiga ku sidan jiray markaan yaraayeen qalbigayga iska diganayd si gooniyo weekayd si gooniyo socon jirtay si gooniyo hadli jirtay de ismaal hayn Soomaali bayba ka dhalatay kadibna wuxuu yiri anigoo isla de Soomaali tani kamay dhalan qalbiga ku haysataa de waad iska samri wuxuu yiri maalin ay meel aan joogay iyadoo gabar kale la socota ayaa albaabka iga soo gashay buu yiri qac markaan ka waan yaabay moogtahay shock bay ku dhacay I couldn't believe it marka inta qalbiga iyo maskaxdu you know markaad wax aragtid aad naxdid love at first sight it takes time the qofkii in wadnaha iyo qalbigu isu sheegaan oo isgaarsiiyaan connected dots this is the person telephone baa soo galay waa qofkii aad raadinaysay inuu ku yiraahdo wuxuu yiri gooraan u tagay gabadhii oo ku yiri Allah waa adigii marka after a while gabadhii adigu eventually wuxuu yiri de markaan ku dulnaanaabay way ugu tirday waa adiga niga dhamaan weyniyo 100 gabdhood baa iga qurux badan oo dhulka joogay ma doonatid maxaa aniga igu ka agnaanaabay wuxuu yiri markaas waxaan idhi wuxuu qaaday markaa heestan kuma cud fiicniye haddaan yaro ku yaro ooyo iga hal hada wuxuu heesti xasanaadana oran jiray maxay ma ogtahay siraade Soomaaliyo idil uma sidatid quruxde habla kula sin ma jira or something la kudig ma jira anan saawegine kaswale kaliga ama kaga sansaday
sumad male jacaylkuye waan sidaaya ilaa qaabo soo dhawowo ilaa qaabo oh haygu sii dayn that's going to be airing inshallah new yearkay soo baxaysaa new yearka soo dira daydinkuna khayr iyo barwaaqaynu isku ognahay I love you keep rising keep smiling and keep loving all things beautiful always and forever happy new year I don't know happy new year horanina la yiri waa new yearkaynu iskala qabsanay and okay waan ka noqday khayr baynu isku ognahay dhabada